taasoo aad iyo aad u xigmad badan. Beerfalihii ka yaabiyey boqorka. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo baxay boqor ka mid ah boqorada asagoo u soo baxay in uu soo dalxiiso. Kadib ayuu wuxuu arkay nin beeraley ah oo beer falanayo, weliba asagoo faraxsan iskana heesayo. Boqorkii ayaa weydiiyey ninkii oo ku yidhi, waxaan ku arkaa inaad tahay mid ku faraxsan shaqadiisa beerfalidda ah ee dhulka aad falayso ma adigaa leh? Beerfalihii, maya mudane, waan ka shaqeeyaa lacagna waan ku qaataa. Boqorkii, oo meeqa lacag ah ayaad ku qaadataa intaanoo daal ah? Beerfalihii, $4 maalintiiba. Boqorkii, oo ma kugu filan tahay lacagtaas yar? Beerfalihii, haa way igu filan tahay, wayna iga badan tahay. $1 nolosheeda ayaan ku maarayaa, $1 diinteeda ayaan ku xoojiyaa, $1 waxaan ku biilaa dad iga hooseeyo, $1 alle dartii ayaan u baxsadaa. Boqorkii ayaa yidhi, kani waa kaftan aanan fahmin. Beerfalihii, aniga ayaa ku sharaxaya mudane. kow $1 aan nolosheeda ku maareeyo waa $1 aan aniga iyo xaaskayga ku noolaano. labo $1 aan diinteeda ku xoojiyana waa $1 aan ku nafaqeeyo hooyaday iyo aabahay, sababtoo ah way soo barbaariyeen wayna i nafaqeeyeen anigoo u baahan, haddana way weynaadeen mana awoodaan wax shaqo ah. saddex $1 aan siiyo dadka iga hooseeyana waa $1 aan ku biilo carruurtayda. afar $1 aan alle dartii u baxsadana waa $1 ku nafaqeeyo 2 gabdhood oo walaalo ah oo xanuunsan. Boqorkii ayaa inta u ooyay ku yidhi, nin yahow wax wanaagsan baad qabatay, waadna mudan tahay farxadda. Kadibna xoogaa lacag ayuu siiyey, wuuna iska baxay asagoo la yaaban ninkan xigmadiisa.